ahaan marti sharafta ma garanaysaa idii sheekha oo runtii marka muuqaalkooda aad soo eegto wax runtii aad ku farxad gelin marka koowaad wada gacmo furan waxa abaabulkeeda lahaa ururkaasi talo wadaag ee maarataanay bulshada reer Abukar loogu talagalay inuu ka shaqeeyo danaheeda caamka isu ururinteeda ma garanaysaa isu keenkeeda iyo maarataanay sidii ay bulshada muslimiinta guud ahaan uga mid noqon lahayn iyagoo nool oo taagan bulshada reer Somaliland ay uga mid noqon lahaayeen marka ku soo dhawaada gacmo furan marka koowaad sidaynu wada ogsoonahay waxaynu nahay dad muslimiin ah waxaynu insha allahu tacaala ku furan doonaa xafladeennan aayaadka qur-aanka kariimka waxaynu akhrin doonaa sheekh garaad ku soo dhawo من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم لكم دينكم ولي الدين. إن شاء الله تعالى كعب التعاطف وحويا ما أنا قلت لك إنك هل تفتح الله يوم قصة ليس هذا الخدع سكوس ليس يحي صدق الجدوى وإنه شركة لقلا ودها مركا تردد ضدك أو بدن وقتك إنه حيله أو يا يدك إنه حيسمين حضلان وهم هنا أعظم بدن ويحيي ما تيني هل كي ما دام يدك جوجا يطلب أي كذا يسنو كنت أدبر بعد دارنا يا تاس إن شاء الله تعالى ونجح على هذا مركا ترى يروح قوم بينه أي نقص أورن دولار فحكلام كعذر دارنا يا مركا هذا الله بحه كل قف رد أو هذا الأوضة حيدا كو كان ترولي سا ما كل معمول يسا وقت يروح قوم مركا قفول إن شاء الله تعالى إن وقت يروح قوم نسينا أيو إن شاء الله مقصد كيو جدد إنه بدو يستعجل ولا وحكلام كعذر دارنا يا وجدد الشرك ولا يحي إننا وحكم أحسن للجريم الله بكم ناظر وجدوا إنك الشركة يوم ما تعني وحنا الله حسنا وترى قرينا لنا صدق عشان يوم يقعد قدام وحبي أنا كنت كسي دارين طبعا كنت كسر دوينيا ما دام هو أورك الولاء وحفلة السماية إن إلا لما تنيوم مرير أن أقال إنه أفضل شق فوق الدول أو كور بحياة تاريخ ذا أورك وحياتها أوقف صومي جودهان بيوم ما ركعنا وحياتها أوقف شيئا يبغى شهر وجود هذه لهينا waxaan markaa ku soo dhaweynaya ugu horreyn si uu inoo furo si maarataanay toosa gudoomiyaha ururka tala wadaag gudoomiye Cadnaan Cabdilaahi Naasir ku soo dhaweey بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka hore waa salaamaya bulshada reer Abukar ama dhaqanka ama dhalashaa ka soo qayb gashay iyo marti sharafta kale su'aal jiitay يارمان أولو كتلولاك وويري. هذا الكيل مركب وهر ساعة محمد يوم كوسا سنة دونا يعود دار مسمى يوم ترى هذين يبعدان وعني من واحد دار مسمى يا أحمد إبراهيم أو حسين ومن سؤال شيء بيبين حفلة وكذي كان نقول هم قوة هذا حالتك دي بسوكرني وعذردار marka ay iga gaarsiya dadka bulshada ka soo qayb gashay shirka wixii aad qaataan waa la qaatay wixii aad igu soo qortaan arrin iyo adduun banawaan ila qaadanaya waxa sidoo kale u mahad cudurdaaraya Cabdilaahi Yusuf Xaaji Cawaale oo teleefankiisu xidhay kulli weyn uga doonaa inuu cudurdaarkiisa waa wax rasmi ah kama ogin laakiin teleefankiisa baa xidhnaa iyo dhowr qof oo kale inta marka ka tago
dhammaan waan u hadlayaa bulshooyinka reer Abukor ama dhalasho ama dhaxdinaamo iyo martishada tabay aan ka tegin xafladda ka soo qayb gashay intaa kadib waxaan halkan ka ilaalin doonaa iyo ku wargelin doonaa ajandaha shirka arrin reer haddii la isla kaga hadla shir ama arrin ummad ama arrin dowladeed hal shir laguma soo koobi karo laakiin qodobo kow iyo laba la yidhi baa la doortaa oo la qaataa markaa waxay tala wadaag oo martibu tihiin dhammaantiin ay qodobada shirka lagaga hadli doonaa ama ajandaha shirkani noqon doonaa laba arrimood oo ururkan u igma yahay ururkan tala wadaag sida ururada kale ay leeyihiin bulshooyinka kale aynu leenahay hareerahayna ku noole habar yunis ama ummadda kale Somaliland nagula noole ay leeyihiin waxa ay ka shaqaynaysaa laba xaaladood oo markii la arkay wacyiga reerka ama duruuftii uu ka aasaasmay ururkan oo ah in wacyiga reer Abukor maanta hooseeyo oo mustawa hoose joogo halkee laga soo horumari karaa baa leeyahay marka laba xaaladood baa loo gartay laba xaaladood oo ummad u keena horumar mid waa ummad dhaqaale leh waa lagu ixtiraamaa dhaqaalaha iyo cilmiga ama tacliinta oo maqaamka hore lahayd wanaagsanaa wuxuu ahaa ummad dhaqaale leh ama tacliin leh dadkuna marka uu dhaqaalahoodu hooseeyo gurgurtankoodu wuu yaraadaa dadnimadoodu way yaraataa way qaybsamaan waana la kala kaxaystaa marka duruufaha uu ka dhashay ururku ayuu ka shaqaynayaa ururkani oo ah tacliinta annagoo martidii ka ah fikirkiinana inaad ku qaadataan waa labada qodob baa horta ajanduu yahay tacliinta iyo waxbarashada oo annagu aanu u soo qorshaynay maadaama aanu malaynay in meelahaasi meelaha ay tahay inuu reerka ka soo noqon karo oo mustawihiisii hore uu ku soo noqon karo marka waxaan jecelahay inaan ajandaha dadka iga dambeeya ka hadli doono shirku aan ajandaha ka bixin markaan intaa ka tago waxaan anigoo kolley liiga xoogaalsan yahay reerkeena oo ah qofkoona ku nool inagoo badankeenu arrinkaa u badan oo aan dad aqoon badan waxaa lutay xataa isbarashadii dadka aan dadka aada u aqoon waxaan xusi doonaa dadkeennii achievementiga sameeyey ama guulaha anigoo uga dalna inaan barbar dhigo dadkeena maanta jooga annagu ma nihin hogaamiyeyaal ee waxaanu nahay dhalinyaro waana la gaari doonaa xilli aanu hogaamiyeyaal noqon doono ama hogaamiyaal bulsho wax weeyaan culimada dadka dhaqanka ganacsatada iyo siyaasiyiinta ayaa bulsho liidarkeeda ah ama hoggaankeeda ah marka kuwa maanta jooga ayuu baan barbar dhigi doonaa kuwii taariikhda hore wanaagsan ee midnimadaa sameeyey si ay ugu baraarugaan oo taariikhdu ay yacnihii qorto sida dadka aynaa hore u qortay waxaa ka mid a sheekh muuse xaaji cawaale banyareeye inabidaar xaaxi caw qurac batuun soofe ciise iyo Siid Axmed waxa laga yaabaa inaan qaar ka tagay waa laga raalli ahaan waxaan uga dalay tusaalaha yar kooban waa dadkii guulaha gaadhay dejiha wanaagsanna reerkeena ku hogaamiyey jideeyeyna inagoo reer kooban tiro kooban ah midnimada xooggeeda la muujiyey oo haddaan tusaale ka siiyo dowladda yar ee Israa'iil iyo Yuhuudda waa dowlad aad u yar laakiin saameynta weyn ee dunida ku leedahay waxa keenay midnimo waxa la yiraahdaa intaan ma kala sameyn markii jasiiratul carab ka baxeen ay u baxeen Yurub ay ku kala filqameen iyagoo meel joogta ay dowladda ahay ay baarlamaan lahaay taasi markaa waxay muujinaysaa midnimada xooggeeda waxaa intaa dheeraan doona qodobka kaaxiga ka hadli doona noqon doona ururka iyo sidii uu kusoo aasaasmay ururka sida caadi ee uu ku aasaasmo tiro yar ayaa dareenkani ku dhashay inagoo dareenkaa guud ahaan dadku qabay laakiin intii ku dhawaaqday markaa horseeda waxay ahayd tiro kooban tirada kooban shirar hordhaca gogol xaalay yeesheen anigu waxaan ahaa dadkii shirkii ugu dambeeyey yimi fikirkan markii laga soo bandhigayna dee waa inaan ku qaato mayla gudboonaatay waayo aynu midowno tashanno iscaawinno alla isbartay intaasunba ku koobnaa oo waayo siyaasadda laguma heshiiyo siyaasaddu saaxiib joogtaa malaha waa interest laakiin danta waa lagu midoobaa oo qabaa'ilkuwa dambi ku wada joogaan maktubu waa dan weeye markaa shirweynihiisii ugu horreeyey wuxuu dhacay February 29 u dhacay waxaa lagu doortay guddi baa lagu doortay guddidaasoo 15 xubnood ahaa howlihii ururkana anba qaaday oo meel hoose ka soo anba qaaday soo la gaarsiisay deegaan
ومانتا حبلها يقدم بين هذا الكون في دولار هيركو مانتا مريو حالته iyo marxaladda keentay aasaaska ururku wuxuu ahaa duruuf wuxuu ku aasaasaa duruufku ka aasaasaa waxaas markaa jiritaankiisa dheeraada waxaas hadduu ahaa wax loo baahan yahay sida dabaysha ayuubaa markay laba qof ku dhawaaqaan dadka kale la gaadhaa markaa marxaladda hoose ee mustawaha hoose reerkeedii gaadhay ayuu ka aasaasmay haddii aan qaab dhismeedka ururka intaa uga gudbo waxaan waafajinay qaab dhismeedyada ururada kale ay leeyihiin waxaan wuxuu leeyahay shirweyne guud ama assembly oo ah isu imaatinka guud ama xubin kastoo reer karo xubin ka ah waa awoodda ugu sarreysa guddidana dooratay waxaa taa ku xigta guddida fulinta oo 15 xubnood aan ka dhignay tira ahaana aan 7 ka dhignay rag 8 haween iyadoo Soomaaliland guud ahaan haweenku kaalin firfircoon oo muhiim ah kaga jiraan anigu macallin baan ahay waalidka ka dareemay carruurtooda ee خبرة هوشة أرضي وحفرشة وهواء وحلقة لما والدنا رك أركو مركز المفضل هو أغني هواء كأيام هل عد ديرسين هكا مركز يتوقع عدنا في الفصل يعني عد كهالليل قام كقاوم وضعنا وياشوا بزومية أيام دورتي وأنا قاف يقدر يحكي حاجة هواء كلا دورتي وأيام يوسف أيام يوسف حسن قصير شيء وحى لا دورتي فيسي يوسف حاجة عوالة الحوقية قلنا إبراهيم علي أبو حبيب الله دورتي dadka waxa lagu sameeyay doorasho wax lagu kala helaya ama mushaar cid ku qaadan sameeyay hayna cidii jeebkiisa duulaan lagu waxa shirku ururku wuxuu ku soo asaasmay hab qaaraan oo 10 qof ama 50 qof ee hore sare jeebkooda lacagti ka qaadaan waxa ururku sidoo kale leeyahay laamo u dhisan oo Tansaaniya ama hadii aan soo koobo meel deegaan kasta oo reerkeedu degan yahay wakiil baa looga joogaa taana waxa marka وفوده كنت سعودها بوعاء فيصل بطون يشغل أي هرسات كويه قربجوته يقولنا كهذه الدورة أو قيمة كراء قربجوت منها ويبلغت عرب أفريقيا ملك السود ديجانا وعرفنا غير كي بحوجي وكل بينه شو قارنا ولا قتباته واحد عشيب واحد ويا قارا كمان تعمل عكس قارا كي تلوده وحكي بعده لاسعانود مالتا إنجليزكا نيبو كيبادا أودينو كيبادا حاحمو كيبادا هرجيسو كيبادا إسبارشة بدن يمين نما بدن نوعنا واحد سبعين مرة ميل بركولا أو واتساب أو يكون الحيران برشة قربها يبرشة جدوف مرة قام بسمة كل كم بيشرايا لامو نوجا وكيلا إنجليز كايا شغلان حليسية أشدها أما شركة جدي دنا جارسية حبلها كاين يجي شغل سيدو كلا واحد شراف حبنا بدها إنه بديه شغل هذا الناس قابلسن ومقالين كي ناس قابلسن فيصل بطول إيه شغله أي نوع قابلسينهم قرعة مركا قابلسمات كستو ورلهان شري وأنا وافقني صابتها ورد اسم مثله وحيابا يكون قلبي يشري كران لكن أما هذا قرر سوفان أما مت سياسة أما مت برشة سيدا كي نوع كلا ويس مثلا شغال waxa weeyaan hadii aan eray kooban ku soo qadaan erayga ku soo koobo shaqada ururku waxa weeyaan horumarinta bulshada afka oo laga horumarinayo inay dad iskaashada ahaadaan dad aqoon ahaan dhisan ahaadaan dhaqaale ahaan dad dhisan ay ahaadaan marka maadaama ururku arkay labada arrin hore soo xusay inay yihiin meelaha laga horumar karo waxaanu سمعني ميزانية واحد من المركز العاقصة ورورته اللحبلة إنه واحد سمسني ميزانية اللحبلة وضع اللحبلة المركز العاقصة ورورته إن بقول كبين تانا وربحية تعلم بقول كبين تانا وربحية وحرشة أقاسمها أو من تسك الشركة قرية شري أو فعفانية توسيق الدورة يمدي العافية الدورة قرشها أوركو وحويا إن كان بكل كسر معنا أوركنا أي كسر معنا أو أما وحتركي سنسو قالوا قف كده كوحتر أيضا كوحداري كيو بها وحترك أوركو قالوا وهي هيكس أوركو وحويا أبوك الكون أساس لا وماتي هيكس وجود بيواصلة ولا مستواه كيف رأي تصالح بعد حق الشيء كستو وقت بيهايو واحد سويدي حلبانا دي كل كهري سؤال لا يكوي مين حبك قبائلك هل حلبان بين فلاحي
waxaa laygu yidhi tiro yaroo kooban 8 ama 7 ama 9 ayaa la siiyey guud ahaan habreeris waxaan isweydiiyey reer abukaro tiro yara sidee u helan xildhibaanka waxaa la sheegay inaynu lahayn tiro ganacsato ah oo isku xidhan oo xooggan oo markaas suldaankii markii lagu soo wareejiyey liiska habreeris koobnaa la siiyey inay nagu helnay oo miisaan ku dhex yeelanay habreeris ugu dambayn waa talo xubno badan baa iga dambeeya oo ururka ah hadalka markaa inaan u dhaafo ayaan doonayaa taladan halkan ka dhiibaya waxa weeyaan waxaanaanu soo samaynay iyo shaqada ururka waxbaa ka khaldanaan kara laakiin taariikh dhow lama hayo dad badan oo reer abukara arrin kulmiyey ama urur kulmiyey qofkii salugsan ururkan iyo habka u shaqeeya waxaan ku talin lahaa inuu kanuun hagaajistee inaan mar dambe hadday tani kala tagto bulsho dambe oo abukaro intan leeg oo daafaha caalamka iyagoo jooga isku xidhan maanta qofka ku kufa ingiriiska ee gacan wax ka noqda burcay ka dhacday arrinkaas iyo shaqo la oo gacan ka tirooday baa yacni arrinkan la yaabay sida meel walba looga soo yacnihii loola qaybsanayay markaa waxaan ku talin lahaa anagu guddi ahaana mutaxileed baan leenahay sanad ku kooban ciddii naga dambaysaana cidda hawsha bilowdayba hawsha adeegeeda qabatee inay halkaa kasii aba qaado oo kan wixii ka khaldan ay saxato waayo haddii bulshada inta leeg la kala kaxeeyo mar dambe dee inta leeg islama helayaan waxaan mahadnaqan kusoo koobaya waxaan mahadnaqayaa wufuudda ka timi burco gudoomiyaha xaaxi masaafo dheer bay usoo mareen dal guud oo dal gaara bay soo marine aad iyo aad baan u mahadnaqaya waana kusoo dhaweynayaa shirka intaa waxaa ugu dambeeya wuxuu ururku codsan doonaa farraysi baa ka codsan doonaa ciddii karaysa ama qaadhaan ayuu codsan doonaa waayo miisaaniyaddii ururka ee 6 bilood ku eekayd lacagtii soo xarootay lagu talagalay 10 ardayna wax laga bixiyo tiro dada oo reer abukarana lagu maalgeliyo loo furo meherado isdhib baa galay marka tiradii qorshii dib loogu noqdo halkii laga geli lahaa farraysiduu ama dhaqaalo ururinta looga faa'iidaysto oo imika badda dad ballan qaaday ay jiraan dadka iga dambeeyna arrinka u dhaafi doonaa markaa shirku inoo furan yahay aad iyo aad baad mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu السلام ورحمة الله وبركاته. عدنان ما سيهاي وقت كله يقع وان كعود الدارين كنت وحن آدم يكون يريد لنا يا وقتك إن سيد قفك السنة بلنا نسينا إنه سنت هسيكا فايدة هنا أو صوت وامور بحنتي. عدنان بكرشة كي قبل إثبات كأوركا وجدوا يمكن أساسية درين كي وكل بدي وحيالها والهكسنة يو مستقبل كيسو يحي يجي ديلوين كبوك كستو هالكن يمي وموقدا ونموقد دون ذاك البرنامج كسيتو سووا هذا كمية قوي أورو وعن كسر وين يا هرب وصل على يا بدهم يكرهين كا أيام يوسف حسن وعن سين دون شان من اللي يبغون يني إنه هو كل مرتو وحياتها يكون كبسو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan martishaarta halkan isugu timid rag iyo dumarba ka socota bahweynta abubakar gudiid aad iyo aad baan u faraxsanahay anigu horta noloshayda maan arag intaa in leego dee reerka ah oo meel isugu timid marka waxa weeyaan horta wax lagu farxo weeyaan ilaahay ayaana mahadda iskale subxaana wa tacaala marka ugu horreysa isku keenay isku xidhay muxuu ahaaye quluubteen iyo qalbigeenii israaciyey inagoo meel kasta ku kala nool ama dal ha ahaatee mid dibada ha ahaatee mahadda ilaahay ayaa iskale dhammaan inta kasoo qayb gashayna waan u mahadnaqayaa waxa weeyaan annagu ka guddi ahaan haddii kelmaddii laygu qoray aan ka hadlo waxa weeyaan horta qolada culimaawidiinta ay nala joogta waxaan leeyahay culimaawidiin badan bay muuqatee raalli baa ahaanaysaan gabadh meel soo istaagtay iyo inaga reer bokor baa layna idhaahdaayo waxaas dee kumay jirin dhaqankeena laakiin waxa weeyaan dan iyo duruuf baa keentay waa laga raalli ahaanaysaan aad waxaan ugu faraxsanahay oo kale tiro door oo raga dee ama ilmaadeeran ahaan ama adeerada ha ahaadaane oo meesha fadhiya maanta ayadana 6 bilood oo rugaasi jiray waa kow maanta waa ii kow waxa weeyaan wax lagu farxo rag doorkoodii way gabeen reer bokor laakiin maanta waxa filayaa inaynaan dib u noqonin halkaa maanta taagan tihiin annagu hablaanu nahay dumarka la qabaa way nagu yar yihiin weliba markaan ku canaano raggan kulina dumarkiina ururka soo geliya waxay mid walba reerbe ka dhalatay ama siyaasadeennay saaraysaa ama muxuu ahaaye dee qaabka bay dhacabuuri bay u haysaa innagaa taagan annagu waxa weeyaan xataa qadiyadda reer bokor waxayna gaadhsiisay in
inaanu carruurayagii guryahayagii intaanu ka tagno aanu ilaa burco qabanno oonu meesha kastee muxuu ahaye aanu dhaliil ka tirsanno reer bokoreersana way ka gaabiyeen aanu ka soo ololayno 2 wiil ka hor burco aanu qabannay maasha allah wallahi si qurux badanna waana lagu soo dhaweeyey ujeeddadii hadafkii aanu lahayna waanu ka gaadhnay oo muxuu ahaye de ahayd in burco markii hore nala qaadatay oo lacag badan oo dooro qaadha ayna nooga yimid jirtay hiilii hooba nala garab taagnayd ayaa waxaa ku yimid dib u dhac marka waa tii aanu annagu wafdiyaalkaa tagnay aad baan markaa ka soo faa'iiday waxa weeyaan markaan annagoo dumara oo reero u dhaxnay gabadh walba reerka u dhaxnay reero u dhaxnay oo qablaaha waxa aan samaynayno de waxa weeyaan horta ragga waxaan leenahay dumarkiinii la kaalay waa koow marlabaadka waxaad leenahay ragow adeerayaan iyo maadeerayaan dee annagu waxaan dumarka ahaa noo muuqday le annagu inama kala dhalo reero u dhalay maye waxaan annagu aan walaalada iyo maadeer doonaynaa dee waa ina idinku horta marka hore aan ka aragno deetan idinku daba faylo taas waa canaan raallina waa iga ahaanaysan haddaan ku tarax tegay waxa weeyaan waxaan ka hadlayaa doonaya inaan ka hadlo xeerka qoran waa laydiin wada dhiibay baan filayaa xeerkii dee idinkaba akhrisan kara waxa weeyaan xubinimada reera bokor xeerkaa ku qoran waxa weeyaan qof kasta oo bokor xildiida oo 14 sano ka weyn xeerkaasi wuxuu fasaxayaa inuu noqdo xubin ka mida reera bokor oo markaa la nafya maaba qaybsanaya weeyaan xubin kasta maaha xubintii kasta reer bokora diida ama dee muxuu ahaye wax tabanaysa muxuu ahaye wax kala sheegaysa ina kala qaybqaybinaysa taa kuma jirno annagu waxa weeyaan xubinta nadiifta ah caafimaad qabtay reer bokor weeyaan 14 sanana ka weyn muxuu ahaye ururka guddigiisa guddoomiyaha idiin sheegay annaga mutaxilaadkayagu waa sanadkaasi 6 bilood bishii 6aad baan ku jirnaa imika bisha lacagtii qaaraanka weli waan ku dhex jirnaa waa bilow 5 bilood hore lacagteedii waxay noo taallaa kowka dahabshiil waxaan leenahay number saado lacagta loogu soo diro si toosana waana loogu keenaa bishaasi markay dhammaato waan odhad baan la gala waana la xisaabiyaadka lacagta waxaan ku shubnaa bangigaasi waxa weeyaan 6 qof baan ku qorannahay buugga bangiga 6 qof iyagoo wada socda mooyaane senti lagama saari karo hadduu qof maqan yahay xataa lagama saari karo waxaan ku war mid ka mid ah hadduu dhinto maxaa la yeelayaa maxaa lacagtiisa loo saaraya haddii 6 le madka dee laskuma hubo nafteed dee waxaa reerihiina soo cadaynay markaa warqad cadayna noola kaalaysa inuu qofkii dhintay markaasaa waxaan ugu adkay inaan qof ahaanina ku takrifalin xoolaha ummadda halkaana lagu ogaado 6 bilood markii ay muxuu ahaay dhammaato xoghaynta idin faahfaahin doonta waxa lagu qabanayo iyo sida boqolley baa loo qaybiyey sida boqolleydaa loogu qaybiyey waxqabadkaa 5 bilood maasha allah bil walba waxaan xiraynay $1 laakiin dhaqaalayntaa ka badan baanu doonaynay bishan imika ugu dambaysay ayuu hoos dhac nagu yimi bishaana maaqa wallahi dadkii miyay ka caajiseen lacag baa la waayo wasaaradaa dhacay dee kolley qaar badan oo inagoo halka fadhiyo aan bixinno way jiraan qaar aan ogeyno aan dee laba canaananayno way jiraan marka waxaad leenahay adeerayaal oo qaaraanka kolley dee wax dan baynu ku qabsanaynaa annagu waxaan ku markay bishu dhammaataana laga xereeyaa 6 bilood dabeedna idinkaaba kulli saa dhantiina la xisaabtamaya wixii qof waliba soo diray whatsapka habeenka qofka $5 soo diray ka soo diray whatsapkaasaan ku qornaa si halkaa qof waliba ugu xisaabiyo lacagta halkaa kusoo dhacday oo deeta xisaabteeda annagana laga raadiyo aad iyo aad baan mahadsantihiin dhammaantiin aad iyo aad baan u salaamaya qurbajoog iyo qaranjoogba waxaan ku yidhi waqtigaa yar oo waa soo koobaya waan salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإما هاتسنت أيان يوسف حسن جودهان يدنا وحي نظم مرتي قاب ولا حساب تنكوا يدنا على بحنت أوركا وحكما يدنا ينور لمنو هنتي أيوة آل سبينا نحركي ما تبرنامج كذا سي وحقوق ما يلعك سي أورورنا يو هرا بكر يو أوت كودا يو أوياشو ما تلوه تلاقي فرمر كودا ما تقبل waxaan yeerayaa oo sidaas ugu yeerayaa xogayaha guud oo intaan xogayaha guud u yeerin waxaan jecelahay shirkan quruxda badan dad badan baa runtii tamar badan kaga baxday isu keenkiisa waxaa soo dad meesha fadhiyo family aan gurigooda loogu tagin oo lagu booqanay ma jirto dad baa socodka inta adag sameeyay waxaan ugu yeerayaa markaasi qof guddidii qabaqaabada shirka ka hadla oo guddoomiyahoodiya oo inoo dulmara shirkan iyo qabaqaabadiisa iyo hawshiisa say ku timi waxaan ugu yeerayaa mubarik axmed cabdiraxmaan 5 minut baan siinayaa 5 minut baynu kusoo koobi doonaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد انتهى كبعدي وحنو هذا يا دمان هويوينكا adeerada iyo dhammaan marti sharafta qiimaha iyo qadarinta mudan
nagala soo qayb gashay xafladan qiimaha iyo qaayaha badan ee lagaga tashanayo masiirka iyo horumarka ummadan kala wadaag waxaan u mahadnaqayaa aqoon-yahanka waxgaradka culimada hooyooyinka iyo dhammaan marti sharafta qiimaha iyo qadarinta mudan dhammaantood waan u mahadnaqayaa waxaan leeyahay shukran jasiilan laa shukra waxa la yidhaahdaa man lam yashkur innaasa lam yashkur illah sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa dhammaan ururka tala wadaag oo barnaamijkan qiimaha iyo qadarinta mudan noo soo diyaariyey waxaan sidoo kale idinku yeedhnay dhammaantiin waxaan idinku yeedhnay laba qodob oo kaliya inaad nagala talisaan waxbarashada reerka iyo horumarka dhinaca dhaqaalaha waxaan idinka mahad celinaya